loogu baahnaa dadka loo sii baraarujinayn sidii loo baahnaa macala marka wax la dhisay loo dhisayn. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هي خالقة ما طبعا كهالينا daadka muxuu dhibaato dadka u leeyahay xaguu ka yimid iyo waxyaabaha keeni karaya. maanta wadano badan oo adduunka waxaa dhibaateeyay amba dhibaato waxa la soo dur saaray cimilada isbedelaya dhibaatayaal badan bay keeneen dhibaatayaashan wax kamid ah daad. videogii hore saan kaga soo hadalnay maanta markuu cimiladu ay kululaatay joogu kululaaday waxaad imiday amba waxaa imiday dhulkii barafka haayo da'ay markaana biyihiina ay bateen biyihii badda markay barteen waxyaabo badan dhibaato badan ay u keeneen dadkii ku garab noolaa biyaha. amba waxaa la is iri waxaa keeni karaya amba cimilada isbedel waxay keeni karayaan dabaylihii awal imanayo sii ziyaada amba waxaa iman karaya roobkii da'aya awal oo sii ziyaada maalmo kasii xoog da'aya taana waxaa keenaya cimiladan isbedelay amba dhulkan kululaanaya. taa waa mid weeyaan. marka sidee bay aan daadadku u dhacaan haddii in yar soo koobo daadku waxaa keeni karaya badoo soo rogmata baddana waxaa soo rogmasiin karaya ama badda dhulguri ka dhaco dhulka hoosteeda badda dhulka ku dhex jira oo hoosteeda dhulguri ka dhaco kadib dhulguriirka u keeno badda soo rogmata amba badda dabayl soo dul saarto soo kaxaysa biyihii oo keenta dhulka meel u dhow. taana waxaa labadaa shay baa keeni karaya. waxaa keeni karaya macala roob badan oo da'a oo dhulkii roob markuu ku da'ay amba webiyaasha amba badda ay markay buuxsameen soo fataheenoo ay dibadda u soo baxeen. nasiib daro maanta waxaa yaabaa annagoo waxa ay ku dhan iska garanaynaa ayay wadannada qaarkood oo ku halisa daadku intuu ku dhaco amba sida la yidhahdo wax santineera 100% hal uu ku dhici karaya sanadkiiba daadadka ayaa haba yaraatee isku diyaarinayn maxay ka dhigan tahay sidii loogu baahnaa dadka loo sii baraarujinayn sidii loo baahnaa macala marka wax la dhisay loo dhisayn sidii loo baahnaa loo hagaajinayn meelahu biyuhu ka fatahaan ama meelahu biyihii dib uga noqon lahayn badda lagu shubi lahaa. waxa ayaa ku dhannaa waa wax laga foojignaado. maanta haddii maanta qof mas-uul laga kaa dhigo waddan ama meel wax lagu kaa dhiibo adigoo aad ka tahay mas-uul dee haddii horta hubinba adiga yarba intaad hadhow ilaahay aad u celin doontid waxaa soo waxaysay iyo the counts amba waxay alla timid ilaahay adduunka ku soo waxaysay ilaahay oranaynba marna ilaahay waa kula xisaabtami doona maalinta dee marka waxaad doontid baa keenaysa. laakiin haddii markii kasta hamigaa kugu jiro ilaahay baa arkayo ilaahay baa xisaabi doona waxaa intaan ka soo baxo dee marka wax lagu kaa dhigo waa ka soo baxaysa. taana waxaan uga jeedaa maanta Djibouti ha noqoto Soomaaliya ha noqoto anu meelba ma dhalaaleynayo ma oranayo rag baad ku xun waxsaday laakiin maanta mas'uuliyiin qaarkood way dheersanayaan arrinta adduunka meel kasta ha noqdo aad iyo aad buu dheersanayaan tano waxaa la yiraahdaa markuu daadaxo baa la soo kacay maxaa dhacay maxaa qabanaa waxa ka soo kaysa maxaa dadka horta sii qabatay markii hore. maanta wadano ka soo qad aqalad jingada badan baa jira jingadaha dadku baa laga sii hortagay dadku wax ma loo qabtay taaba taal wallahi maanta ha noqoto wadano Aasiya ha noqoto macala Djibouti ha noqoto Soomaaliya inkastoo dawladdu wax ay wal qaban karay ma aragtaa wax ku dhan dawladdu maaha baalkii awoodoodu xoog ma sareyso maanta wax ku dhan ma wal qaban karayso iltaa ilaahay baa waxaya laakiin taayo anagoo ogsoon maanta shacbiga iyo dawladdu intii siraadaan maxaas la qaban karayna wallahi haddii maanta la helo shacbi amba dawlad dadku nafteeda u horeysa wax kasta siinaysa shacbigeega oo shaqadeeda ka shaqeynaysa si shacbiga wax u qaban leeyahay marka waxyaabo badan baa hagaagayo waxaad arkaysaa marka aqaladiyo amba wixii loo baahnaa oo lagu sii hortagi lahaa la sii dhisay markuu roob amba daadana dadkiiyo maskaxdooda ka sii foojigsan sidii dhibaatada daadka soo dul saaray sidii wax ugu hortagi lahaayeen ay yareyn lahaayeen. laakiin nasiib dar marka aragtid wadana qaarkood oo dheersanaya oo wallahi markay soo dul saaraan waxa la kacayo taana wax dhibaato qalbiga ku taabanaysa. maanta kam hooyooyin aabbo caruur maanta aqalan jingada degan oo haba yaraatee wax ka daafaca roobka haysan oo dhibaatoonaya imsaad arkaysaa wallahi wala yaabaysaa hooyo aabbo waxba haysan maanta siday iskaga celiyaan roobka ama jingada yareeda haysan ka dumtay oo iyaga halis naftooda ah والله إلهي والله أنا أستر
ilaahayna waan iisoo duceynaya wallahi ilaahay insha allah xaalad fiican ha naga siiyo ilaahay jannada ha nagu bedelo insha allah ha noqono wallaahi walaalahayno ha noqono bulsho ha noqono markii kasta walaalkoodu gargaaraya siday horumar u gaari lahaayeen daciifkay waxba haysan insha allah ilaahayna ha naga dhigo bulsho Soomaaliyeed bulsho reer Jabuuti ama bulsho kasta oo Yurub ama dad kasta oo meel ku nool ha noqono maanta ninka walaalkiisa naftiisa ugu horeeya wax siinaya sidoo horumar u gaari lahaa insha allah walaalahayna dhibaatoonaya xaaladana wallahi waqtigan ku sugan ee dad u qarciyay Jabuuti ama dhibaatoonaya insha allah ha noqoto lacag loo ururiyo ama ha noqoto wax loo qabtay insha allah ilaahay deelka ma xun qabano qof kasta maanta lacag iska soo gooyaa hawdaro intuu kare insha allah intaan waan ku soo kaabaya videogan waxaan ku leeyahay walaalkii qaaligo maanta hadii qof u gurma karaysid waqtigan la joogo aadaadka Jabuuti soo saar ama Jabuuti hadii aad joogtid noqo kii dadka u gurmada wallahi insha allah noqo kii wax u qabta lacagtiisa maalkiisa sidoo walaalaha ee horumar u gaari lahaayeen waxaan ku rajaynayaa maalin fiican caafimaad fiican waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh